wafdi ballaaran oo hogaaminaya marashaxa madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa maanta kumanaan shacabka magaalada Ceergaabo wata gaadiid noocyadiisa kala duwan iyo gamaanba waxay ku qaabileen duleedka galbeed ee magaalada Ceergaabo waxaana loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Ceergaabo halkaas oo marashaxa iyo wafdigiisu markii dambena ay ku hoydeen garoonka kubadda cagta ee Daala Stadium waxaana munaasabada hadal ka jeediyay maayarka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Daadi Jaamac Xasan مسؤولين كلا كتير حسب جودني يقار كم إذا مدحنا نقن كوحنا يقول باقي شعب كمقالة عرقاب إنه كقيم قاطان يسبدل كل جودون يو أنت لا اللي جوري شيء حسب كل مية وعلى كبر الله إن الضغطه قوش وعلى كسيان لا راي ودعية وقور بارو لا راي شرو قور خير وكاري بدلوا إلا عبها يا ودني ما يقدر يا ودني كلية جويس بمطلق أبورة رأروك على سارة أدار جسوا لقطرة سير فرّد وحلوه فديواس كرر أود كم مرينا إنه ونسلا أن هاي دراته هذا شرته إبدا على حمرة إيش ترى أنت بوحكة قرن كران تاس بين كتورنا إنه gabagabadina waxaa munaasabadaasi taageerayaashan faraha badan ee isugu soo baxay kala hadlay marashaxa madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaana hadaladiisa kamid ahaa midnimo aan ku bedelaynaa anagu jeegaanta midnimada ma taageero Soomaaliland midaysan ma taageero Soomaaliland jeegaan ahayn ma taageero gobolkani waa gobolka dhul ahaan ugu weyn Soomaaliland gobolkan walaalayaal marka la eego wadanka wuxuu ka yahay 40% waana gobol leh khayraad fara badan wuxuu leeyahay bad weyn oo dheer wuxuu leeyahay dekedo caan ah oo xiis iyo maydh ka mid yihiin oo taariikhdeena ka mid ah waa gobol ku habboon kalluumaysiga iyo in laga faa'iideysto khayraadka badda barnaamijka xisbiga waxa ku jira in dhammaan dekedii caanka la soo nooleeyo oo ay ku jiraan xiis iyo maydh barnaamijka xisbiga waxa ku jira inaynu kobcino khayraadka badda si aynu uga faa'iideysano waxa uu leeyahay khayraad ayna ka faa'iideysan oo Allah berigii ugu dambeysay ee Soomaaliya ka shaqayn jiray looxa ugu badan ee laga sameeyo furniture-ka waxa laga keeni jiray gobolka Sanaag kama inaa faa'iideysan Soomaaliland hadaynu nahay insha Allah barnaamijkii waxa ku jira in looxa aynu ka faa'iideysano oo warshado looxa iyo waraaqda cadcad aynu isticmaalno laga sameeyo gobolka Sanaag waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Ceergaabo